marwooyin iyo mudanayaal halkani waa hal qoys hoyga sheeka xariirada Soomaaliyeed marwooyin iyo mudanayaal tusano habboon ku soo dhawaada qaybtii koowaad sheekada boqorkii shimbirta noqday sheekadan oo ku qoran buugga xulashada sheekooyinka waxaa sanadkii 1987 qoray Maxamuud Maxamed Cilmi qaybtii koowaad sheekaduna haynoo bilaabato beriba waxaa jiray baa la yiri nin saaxir weyn ahaayo loo oran jiray Dhakalaas waxa uu ka dhaxlay xirfadda sixirkiisa aabihii iyo awooyaashii oo iyaguna caan ku ahaa sixirka ma jirin baa la yiri qof qura oo Dhakalaas kaga balaayeysnaa dhanka sixirka marka loo eego degmadii uu ku noolaa wuxuu gaadhay baa la yiri heer uu dadka u eekaysiiyay xayawaanadana shimbiro shimbirahana dhagaxaantana dahabkana ciid inkastoo hanti badan haystay haddana xoolihiisa kuma raaxaysan waayo wiilka kaliya uu dhalay ee Dhakafaar la yiraahdo ayaa haabaa la yiri bahal damiinah oo madax adag oo waxba ka baran waayay cilmigii sixirka sidaa awgeed ayuu Dhakalaas hadii jeer uga walwali jiray xaaladda wiilkiisu waxay noqon doonto kadib markuu isagu dhinto wax badan ayuu Dhakalaas ka fakiray siduu inankiisa uga dhigi lahaa wiil ku noolaada nolol wacan maalintii dambe ayuu is yidhi oo maad inankaagaba ka dhigatid boqor awood badan laakiin isagoo isticmaalaya sixirka sidee buu inankiisa uga dhigi karaa boqor runtii waa arrin u baahan fikrad iyo xeelad Dhakalaas waxa uu ahaa inaan ka caajisin khidadaha iyo khiyaamada sixirka wuxuu dejiyay qorshe sare oo wiilkiisa kaga dhigan karo ninka u arrimiya arladii uu ku noolaa dhinaca kale waxaa jiray boqor aad iyo aad u jecel ururinta waxyaabaha la yaab kale ee mar iyo dhif la helo maalintii dambe ayaa boqorkii oo fadhiya kursigiisii boqortooyada oo arrin la gorfaynaya wasiirkiisii ayaa waxa u yimi askari ka mid ah ciidamadii boqortooyada oo si edeb iyo ixtiraam leh ugu yidhi mudanow waxaa albaabka jooga taajir ka yimid dal shisheeye oo sida alaabooyin cajiiba ee miyaan kuu soo daayaa boqorkii baa yidhi soo daa balaan arkay wuxuu sidee waxaa soo galay nin gadh weyn leh oo madaxu ciroobay oo daal iyo diifi ka muuqato wuxuu sitay sanduuqa filan oo alaabi ka buuxdo ninkii baa soo ag fadhiistay boqorkii oo inta uu furfuray sanduuqii soo saaray alaabtii ku jirtay boqorkii markiiba ishiisu waxay qabatay baakad yar oo sanduuqa ku dhex jiray oo dusha ay kaga qoran yihiin xuruufo afqalaada ah boqorkii baa yidhi war baakadkan yar ee sanduuqa ku dhex jira muxuu ahaa ganacsadihii baa ku jawaabay mudanow baakadkan waxaa iga iibsaday ganacsade kale oo lacagtiina ii hormariyey laakiin haddii aad rabtid adigu bilaash iyo lacag la'aanba ku qaado markaasuu boqorkii hoos isula hadlay oo yidhi walee baakadkan yar waxa ku jira waa wax la yaab leh oo sir ah waa inaan qaataa oo sirtana kala baxaa sidaas buuna boqorkii baakadkii ku qaatay dabadeed wuxuu u yeedhay turjumaankiisii oo afaf badan yaqiinay oo ku amray inuu u macneeyo xuruufaha ku qoran baakadka markii turjumaankii indhaha mariyay xuruufihii ayuu boqorkii ku yidhi mudana waa xuruufo ka mid ah afafka Hindiya lagaga hadlo boqorkii baa yidhi ii sheeg macnahooda xiise weyn baan u qabaaye turjumaankii baa ku jawaabay mudanow waxa ku qoran ruuxii hantiye ee gacanta ku dhiga baakadkan yar ee sixirka
wuxuu ka helayaa awood dheeraada. gudaheeda waxaa ku jira ciid khafiifa oo haddii hawada la raaciyo oo qofku uu dhaho muta'abbir wuxuu qofkaasi isu beddeli doonaa xayawaankii uu rabo, wuxuuna fahmi doonaa afafka xayawaanada. hadhow marka uu rabo sidiisii hore inuu ku soo noqdona waxa uu u jeesan doonaa qorax ka soo baxa, markaasoo uu dhihi doono muta'abbir 2 jeer, wuxuuna ku soo noqon doonaa sidiisii hore. boqorkiibaa aad u qoslay oo yidhi isagoo wasiirkiisii la hadlaya, war waa inaynu wadajir u tijaabinnaa qorshahan ashqaraarka leh, oo maxaa inoo diidayaa inaynu hawada sare u duulno iyadoo sixirka shimbira inaga dhigayo. markaas waa aynu shimbiraha hawada sare duulaa dhinac duuli doonno, innagoo oo weliba fahmanna afkooda. wasiirkii oo yaaban warkii boqorka madaxa ayuu u ruxay oo wuu ku raacay soo jeedintiisii. maalintii dambe ayaa boqorkii iyo wasiirkii bannaanka tamashla ugu baxeen, maalintaasoo hawadu aad u wanaagsanayd. markii magaaladii hal cabbaar ah ay ka fogaayeen ayay arkeen 2 shimbirood oo qurux badan oo geed dheer dushii ku sheekaysanaya. markaasaa intuu boqorkii istaagay buu yidhi, alla shimbirahaasi wanaagsanaa oo wacana. wasiirkii baa yidhi, waa runtaa, waa shimbiro wanaagsan, weliba way sheekaysanayaan. boqorkii baa yidhi, haddii aan garan lahaa afka shimbiraha waxaan su'aali lahaa wax badan, waxaan dhegaysan lahaa waxayna yidhaahdaan. boqorkii wuxuu sheeddaa ka arkay shimbir kale oo daruuraha agteeda duulaysa, markaasuu isagoo ammaanaya wuxuu yidhi, shimbir yahow daruuraha dabaylaha dhex maraya, daa'imkii ku'uumaa orod kuugu dawgalay. shimbiryahow dabayla daruuraha dhex maraya, daa'imkii ku'uuma orod kuugu dawgalay. isla markiiba boqorkii wuxuu xasuustay baakidhkii yaraa ee sixirku ku jiray ee turjumaanku u sheegay hadduu ciidda ku jirta hawada u saydho inuu xayawaan iyo shimbirtuu doono noqon doono. markaasaa inta uu jeebka kala soo baxay baakidhkii wuxuu ku yidhi wasiirkiisii, waxaan filayaa inay iminka habboon tahay inaynu tijaabinno baakidhkan iyo waxa ku jira. wasiirkii baa ku jawaabay, mudanow adiga ayaa amarka leh. dabadeed boqorkii ayaa furay baakidhkii ciiddiina raaciyey dabaysha, iyagoo wadajir u dhahaya muta'abbir. wax yar kadib boqorkii iyo wasiirkii waxay noqdeen 2 shimbirood oo aad u qurux badan. wasiirkii baa eegay boqorkii, markaasaa inta uu madaxii ruxay buu yidhi, ku wanaagsanida shimbirnimada boqorow, quruxdii iyo haybaddaadiiba hadday soo baxday. boqorkii oo isu bogaya ayaa isna yidhi, wasiirow ma sidaas baan ugu qurux iyo haybad badanahay shimbirnimada. wasiirkii baa madaxa lulay mar kale oo yidhi, mudanow weligayba run mooyee been ma sheego. boqorkii ammaantii wasiirka aad buu uga helay, wuxuuna yidhi, barina keen aan u tagno shimbirahaas oo aan maqalna waxayna yidhaahdaane. dabadeed boqorkii iyo wasiirkii baa soo duulay oo ku degay laan ku dhowayd meeshii shimbiruhu joogeen. markaasay dhegaysteen haasaawaha 2 shimbirood, waxayna maqleen shimbir kule tan kale. waa inaynu qoobka ciyaar ku maaweelinaa martidanina soo agdegtay. boqorkii iyo wasiirkii iyagoo fajacsan ayay fiirsadeen dhaanta shimbireed aad u xiiso badan. boqorkii ayaa arkay wasiirkii oo aamusan, markaasuu su'aalay, maxaa kugu dhacay oo aadan dheesha shimbiruhu inagu soo dhoweeyeen aadan ugu raaxaysanayn? wasiirkii baa ku jawaabay, waxaan ilaaway kelmaddii turjumaanku inoo sheegay ee inoo celinaysay sideennii hore. boqorkii baa cadhooday oo yidhi, bal waxaad noo geysatay eeg, sidee baad ku ilowday
kelmaddii aan kudhi inoo xifdi oo qalbiga ku hay, ma waxaad rabtaa inaynu weligeenba ahaanno shimbiro? wasiirkii baa ku jawaabay, mudanow ceebta jirta ee taa ka sii darayna waxay tahay weligayba waxaan ilaaway ma xasuusan. boqorkii iyo wasiirkii waxay isku taxalluujiyeen inay kelmaddii xasuustaan, laakiin kelmaddaasi waxay noqotay wax qalbigooda ka baxay oo ay dib u xasuusan waayeen. sidaas ayaana boqorkii iyo wasiirkii ku noqdeen laba shimbirood oo duurka ku nool. marwooyin iyo mudanayaal, intaa waxaa ku eg qaybtii koowaad sheekada boqorkii shimbirta noqday. sheekadaasi waxay ku qoran tahay buugga xulashada sheekooyinka ee sannadkii 1978 uu qoray maxamuud maxamed cilmi. waa inoo qaybta labaad, inta ka horaysana nabadgelyo. Hindi, 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 hindi,